qaybaha waxbarashada ee Muqdisho ayaa maanta soo saaray qoraal ay kaga jawaabayaan nidaamka dawladda ay ku xirtay goobaha waxbarashada xayiraadda fayraska corona dartii. warmurtiyeed ayay dawladda kaga codsadeen in dib loo eego go'aanka goobaha waxbarashada lagu xiray iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan dhammaan tallaabooyinka lagu yareynayo faafitaanka fayraska corona. waxayna sheegeen in duruufaha dhaqaale ee jira darteed aysan suuragal ahayn in ardayda ay internetka wax ku bartaan. gudoomiyaha ururka jaamacadaha Soomaaliyeed Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa saakay sheegay in ay goobaha waxbarashada kaliya xiran yihiin iyada oo meelaha kalena ay furan yihiin oo howlahoodii caadi u wataan. ardaygii fasalkii loo diiday laakiin wuxuu joogaa masaajidkii wuxuu joogaa goobihii ciyaaraha iyo goobihii kale ee loo dalxiis tagi jiray sida baararka ku yaala xeebta Liida iyo badda Liida iyo Jazeera wuxuu joogaa waxay joogaan garoomada ciyaaraha waxay joogaan suuqyada waxay joogaan meel walba kale oo bulsho ay isugu timaado. sidaas daraadeed waxaa kaloo ayadana muhiim ah in lagu baraarugo waddankeena duruufo adag oo dhaqaale ayaa ka jira. haddaba si aan wax badan ugu ogaano waxa ay tabanayaan qaybaha waxbarashada waxaa hadda qadka toos ugu jira gudoomiye ku-xigeenka midowga iskuulada gobolka Banaadir Faarax Adiriye Warsame. Faarax soo dhawow, marka horena waxaad nooga warantaa maxay yihiin waxa aad tabanaysaan maadaama xayiraadda fayraska corona ay tahay mid lagu joojinayo fayraska. isma waa mahadsan tahay waa dhowahay. waxyaalaha aan dalbanayna waxa weeyaan waxaa ardada loo fasaxay iyo dugsiyada iyo jaamacadaha in cudurkan la yareeyo. waxaa noo muuqatay maadaama annaga bulshadii aan ku dhex jirno inaan cudurkiisa aan ku yaraanaynin ardadii inay joogaan playstationada iyo baararka iyo xeebtii inay joogaan ayna hadda intii hore kasii fududahay inay cudurka isqaadsiiyaan. sidaas daraadeed ayaan waxaan xukuumadda ugu baaqnay iyo guddiga COVID-19 ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaani ay khatar hor la keeni karto. dhinaca kalena inay arrintaani ay keenayso dhibaatooyin fara badan xagga waxbarashada ayadoo isha lagu hayo oo laga ambaqaadayo sanadkii hore wixii ardada ku dhacay oo in badan ay imtixaankii secondary ay ku laabteen oo ay ku dhaceen imtixaankii taasina ay keentay in badan natiijadoodii ay liidato oo intii imtixaanka ku baasay natiijadii ay liidato. sidoo kale waxay keentay in iskuulo badan ay xirmaan. waxaa kaloo ka dhashay shaqo la'aan baahsan oo maaragtay dad badan oo waxbarashada ka shaqayn jiray soo food saartay. taas ayaa marka nagu dhalisay inaan xukuumadda ugu baaqno iyo tiimka COVID-19ka in taas ayaa nagu dhalisay marka inaan ugu baaqno inay maaragtay arrinta wax laga bedelo oo sidaas aysan waxba ku socon karin culays badanna ay bulshada ku keenayso cudurkiina uusan ku baaqsanayn. maxay idinla tahay idinka inay wax ku soconayaan haddii aad iskuuladii leedihiin in la tagaa muhiim ah dawladdiina ay leedahay cudurka loo kala fogaado dartiis aan iskuuladii la tegin maxaad xal haysaan idinka marka? waa maasantahay horta iskuulada kaliya maahan waa bahda waxbarashada dhan oo jaamacaduhu ay ka mid yihiin. xalka aan hayna waxa weeyaan in asbaabtii la soo rogay inaan fulino in afxirkii ardada ay sameeyaan social distancing inay sameeyaan oo ardada ay kala fogaadaan meelihii faradhaqa in loo sameeyo jeermisdilihii ardada in loo sameeyo oo maaragtay ay sameeyaan. waxyaalahaas oo dhan ayaan u haynaa. waxaan rabnaa marka dadkii halkan ayaa lagu manage garayn karaa oo lagu maamuli karaa inay maaragtay kalana fogaadaan lana maamulo cudurkiina maaragtay laga difaaco oo asbaabtii la iskaga difaacayo la yimaado. laakiin banaanka markay tagaan asbaabtii aad ayay maaragtay ugu bambaxeen xeebtii ay wada joogaan baskii ay wada raacayaan playstationadii ayay joogaan suuqii ayaa la wada joogaa jardiimihii iyo meelihii ayay fadhiyaan. waxaa ka dhalan kara in dad badan ay drop out noqdaan oo waxbarashadii ay ka dhacaan. waxaa ka imaan kara in badan oo imtixaanka maaragtay geli lahayd ay ka niyad jabaan markay arkaan diyaargarow la'aanta maaragtay meesha ka jirta. taas ayaa marka waxa weeye aan ka hortagayno aan ka digayna maadaama annaga waxbarashadii aan gacanta ku hayno. waan gartay Faarax, marka laga reebo in waxbarashadii hadda iskuuladii iyo jaamacadiiba ardayda guryihii ay joogaan la yiri waa sidee magaalada xaalkeeda kale isbitaaladii marka laga soo tago dad badan la geynaa la leeyahay oo cudurkii waa jira laakiin aaway baarara furan wadooyinkii waxaas oo kale see yihiin idinka magaalada kaligiin ma deganidiina ma isbarbar dhigtaan inta kale magaalada sidii howluhu u socdaan? waxyaalaha keenay in hadda maaragtay warsaxaafadeedkan la qabto waxaa ka mid ah
in hawlihii kale iyo shaqooyinkii kale ay sidoodii u socdaan waxbarashada ma ahan cid kale oo maaragtay arrintan ay saamaysan aysan jirin baararkii waa furan yihiin basaskii waa la raacaa meel walba nolosha bulshada ah sideedii ayay u socotaa wax laga qabtay ama maaragtay amar la duldhigay oo waxbarashada ahayn male 15 beri ayaan soo dhamaysanay markii la filayay in ardadii ama revision la siiyay ama imtixaankii maaragtay loo diyaar garoobo maadaama la joogo sanad dugsiyeedka aakhirkiisii la joogo oo xilligii imtixaanka loo diyaar garoobi jiray la joogo ayaa haddana 15 beri kale lagu daray waa mahadsan tahay faarax diriye warsame gudoomiye ku-xigeenka ururka iskuullada gobolka banaadir